السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسن ميل كستو aad joogtaan waqti kasto wanaagsan kusoo dhawaada Yasma channel. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa mawduuca miiska noo saaran ee ku saabsan infection-ka kaadi mareenka ama caabuqa kaadi mareenka. waxa afka qalaad lagu dhaho urinary tract infection. fadlan haddii aad muuqaal ku cusub tahay subscribe ku nagu caawi, haddii aad horey nala joogtina like-ta nagu caawi si dad badan ugu gaaro ama ay uga faa'iideystaan muuqaalkan ama topic-kan insha Allah. kaadi mareenku waa hab ka mid ah 9 hab ee jirku ka kooban yahay, wuxuuna ka kooban yahay xubnaha kala ah 4 xubnood buu ka kooban yahay marinkan kaadi mareenka, waxaana kala yihiin kaliyaha, ureteriska, kaadi haysta iyo urethra. infection-kan ku dhaca xubnahan ama 4tan xubnood xubin ka mid ah wuxuu u sii gudbin karaa 3 xubnood oo kale. marinkan kaadi mareenka waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood. qayb waxaa la dhahaa kaadi mareenka sare, qaybna waxaa loo yaqaanaa kaadi mareenka hoose. kaadi mareenka sare waxay ka kooban tahay kaliyaha iyo urethra. kaadi mareenka hoosena waxay ka kooban tahay kaadi haysta urethra. kaliyuhu waxay ku jiraan ama u qaabilsan yihiin jirka shaqooyin badan oo aad muhiim u ah. shaqooyinkaas oo ugu waaweyn tahay soo saaridda wasakhda sida kaadida oo kale. waxay ka shaqeeyaan caadi ahaanshaha cabirka dhiigga iyo sokorta iyo shaqooyin fara badan oo muhiim ah. xubin kasta oo ka mid ah kaadi mareenka waxay saameyn kartaa infection haddii uu ku dhaco xubin kaadi mareenka, balse kaadi mareenka sare ayaa ah mid haddii uu infection ku dhaco khatar badan soo wajihi karo, sida infection-ka loo yaqaano pyelonephritis oo ah infection ku dhaca kaliyaha. maxaa sababi kara infection ku dhaca kaadi mareenka? habka kaadi mareenku waa mid ballaaran oo ka kooban xubno kala duwan. mar walba ma sababaan calaamado la dareemi karo, balse markii ay infection uu soo gaaro marinkan kaadi mareenka waxaa qofku isku arki karaa calaamado dhowr ah oo ay ka mid yihiin qofka mar walba suuliga galayo oo damco inuu soo kaadsho kaadidii oo qofka uusan xajin karin ama kaadidii uusan qofka hayn karin ama kaadidii oo kasoo farbaxsata. qodobka labaad, kaadida oo marka ay qofka ka imaanayso uu dareemo in ay kaadidii gubayso ama uu dareemo kuleel, uu dareemo marinka kaadi mareenka ee hoose ee loo yaqaano urethra. sidoo kale qofka inuu dareemo in uu dhabar xanuun badan uu dareemo dhabarka qaybta hoose, sidoo kale inuu dareemo qandho, matag iyo laqanyo, iyo marmarka qaarkood midabka kaadida oo isbedesha. sidoo kale mararka qaar dadka isku arkaan dhiig soo raaca kaadida ama kaadida oo urkeeda isbedelo oo urkii xoogaa ay yeelato ur zaa'id ah. sidoo kale xanuun laga dareemo miskaha iyo gumaarka. dadka ugu badan oo infection ku dhaco waa haweenka, taasoo laga sababeynayo gaabnaanshiyaha tuubada kasoo qaada kaadida kaadi haysta ee loo yaqaano urethra. marka loo eegayo ragga, dumarku waxay leeyihiin urethra ka gaaban, tuubaday kasoo qaada kaadida way ka gaaban tahay marka loo eego kan ragga. taasina waxay u sahlaysaa in bakteeriyada ay halkaasi ku sameysmanto ama ay ku dhalato. infection-kan ayaa yimaada markii bakteeriyada ay gasho kaadi mareenka, taasoo ku taranta kuna sii faafta dhammaan ama inta badan ee habkan kaadi mareenka. waxaan lagula tacaali karaa qaabab kala duwan oo ah qofka inuu isticmaalo dawooyin antibiotic ah iyo qofka inuu isticmaalo ama uu badsado cabitaanada iyo sharaabka iyo siyo biyaha caadiga. dadka aan kaadin karin ama aan kaadida kasoo bixin karin waxaa muhiim ah in lagu xiro tuubada catheter-ka si kaadida looga soo saaro. sidoo kale haddii calaamaduhu ay aad kugu badan yihiin ama aad dareemaysid xanuun zaa'id oo dhabarka qaybtiisa hoose iyo gumaarka oo kale, fadlan la xiriir dhakhtar si baaritaan loo sameeyo oo kaadida loo baaro si looga baaro infection-ka heerka uu gaarsiisan yahay, iyo dhakhtarka si uu kugu soo qoro dawooyin qalajiyaal ama antibiotic ah, iyo sidoo kale wixii talo ah markaasi uu dhakhtarka uu ku siin karo markaasi aad kasoo qaadatid. waa muhiim haddii aad isku aragtid calaamadaha infection-ka kaadi mareenka in aad iska soo daweysid, sababtoo ah haddii infection-kaas uu kugu sii raago waqti badan uu jirka kusii jiro waxaa dhici karta in uu saameeyo keliyahana haddii mar infection-ka saameeyo waxaa dhici karta in keliyuhu ay ku dhacaan howlgab. qaybta koowaad ee infection-ka kaadi mareenka intaasuu ka egyahay, waa inoo qaybta xigi doonta insha Allah.